salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. walaalahayga qaaliga ah, soo dhawaada meel walbaa dunida daafeeda ka joogtaan. waa mar kale iyo walaashii Nasra Abtidoon oo maanta idiin wado kareem karamel waxaa waaye kastar ama lawniyad. daawasho wanaagsan sidaa u sameynayo. ugu horeyn haddaa janaalka cusub tahay subscribe saar, kadibna gambaleelka taabo si aad ula socdid casharada cusub insha allah. daawasho wanaagsan. haddana qaabka u sameynayo kareem karamel baakadaana ku jiraa. dhowr nooca loo sameeyaa. mid wuu jiraa guriga aad ku sameysan kartid, laakiin midkan suuqa aa ka hele yacni suuqa lagu iibiyaa. labadan bac waaye. midaas yarta oo waxay u eg tahay kareem karamel ah magaceeda ku qoran, yacni baakada hoosna 4 ilaa 5 qof meelahaas camal aa cuni kartaa u maleynaa. 500 oo milligaraam oo caano ah u baahan yahay aa ku qoran. marka labadan bac midaan yarta gadaal ka isticmaaleynaa sokor la dhalaaliyo, midaan budada hadeertaan karina insha allah. caanaha ay isticmaalayna qiyaastooda waa 500 oo yacni 500 oo mililitr meeshaan ku qoran. marka 500 waxay u dhigmaan nus litir caano ah. qofka aan heli karin weelkan cabirka ama qiyaasta wuxuu ku cabiran karaa koob ahaan idin tusaa insha allah. koob iyo waxaa waaye 1 koob iyo bar ama 1 galaas iyo haaf. si aad u fahantiin idin tusooyaa yacni ama nus litir. intaas saa doontid u cabiro nus litir caano ama koob iyo bar caano. marka asxaabi insha allah waxaa hadda ku darsaneynaa bacdi yareed waxaa ku jiro kareemkii oo budo ah sidaan uu eg yahay. kaas sokortiisa wixiisa dhan asagaa wato isku dheelitiray maasha allah. kastar aad u macaan badan waaye. haddana dabka saareena waa karineynaa insha allah. dabka dhexdhexaada u geeyay aad ma u dheereenin. waxaa rabaa si fiican iskugu walaaqeynaa insha allah. waa u jeediin hadda midabkiisa, midab oo yacni jaale camal uu soo yeeshay. waa sugeynaa insha allah inta uu ku karkaraayo. kadibna markuu si fiican usoo karo wuxuu saarnaanayaa muddo 20 ilaa 15 daqiiqo meelahaas ah. kadibna waa ka dejinayaa insha allah. waxaa ka sugaa intuu si fiican uga soo karkaraa asaga dhan uu kasoo gadoomayo. hadduu soo kululaanooyaa ujeediin. markuu aad usoo buriyo oo caanaha xumbeeyaan oo weelka caanaha waa ujeediin hadda haaf waa aad ay usoo bataan soo buuxsamaan, yacni uu burinayaa. markaas kadib waa ka dejinaa insha allah. waxaana rajeynaa inaad si fiican uga faa'iideysan doontaan. meel walbaa ka heleysiin kareem karamel baakada sawir screenshot ka qaata, kadibna waa soo iibsan kartaa suuqa haddaad tagtid waa heleysaa insha allah. hadda uu si fiican usoo karkara asxaabe. marka waxaa sameynaa waa dejinayaa dabka ka daminaa. waxaa kusoo shubanaa weelasha yaryara. waxaa soo qaatay sokortii hadda ay bacda ku jirta meesha dhiganayay. sokortan way dhalaalsanta sokor ay dhalaaliyaan iyagaa soo diyaariyay oo ugu soo talagaleen. marka sokorta qeybta hoose ee weelka waxaa rabaa inay hadhowti marka gadaal ay kasoo baxdo. halka weel markuu shubayo sokorta waa kala reebanayaa because way badan tahay. labada weelba waxaa rabaa inaa haaf iyo haaf ugu kala shubo. bacdeen kareemkii oo iisoo karkaray ama kastarkii maasha allah si fiican usoo karkaray aa ku shubanaa weelka. kii labaad haddana soo qaatay. markaa sidaan u diyaarisid fridge-ka gelinaysa. muddo wuxuu ku jirayaa ilaa 30 daqiiqo ama nus saac meelahaas ah. wuxuuna usoo adkaanaa sida kastarka caadiga ah ama warangada. kastarka dhowr nooca loo sameeyaa soo maaha. warangaa laga sameeyaa, mar kastarka caadiga oo budada oo gasacadaha ku jira laga sameeyaa, mar kareem karamelka laga sameystaa, mar jelatiinka laga sameeyaa. kastar hadaa maqashid dhowr nooc waaye. marka insha allah nooc ka mid ah waa maanta waxaa sameysaneyno. wallaahi midkan aad u macaan badan yahay. hadeertaan waa ujeediin sida u qiico uu kulul yahay maasha allah. hadda fridge-ka geena oo isku soo laabaneynaa asxaabe. maasha allah wuu soo dhageeyay kastarkeeni. waa kana weel yaraa soo qaatay. marka waxaa sameynaa weelka waa ku gadinayaa. wuxuu rabaa aqli inaa u isticmaashid. bacdeen sidaan uu kusoo baxay maasha allah. markaa gadiyay sokorti qeybta hoose marta hadda waa kana sidaan ay noqotay. yacni way soo dhalaashay soo ma aha.
gariidkii oo kusoo dhagta markaa gadiyay hadda qaybta kore soo maray ilaan waa gadiyay soo ma aha maasha Allah qaadeera usoo qaadanay alaabtan waxaa waaye ka shaqeey cun leh waay aad u macaan badan xitaa jalaatinka kana kasii macaan insha Allah ka faa'iideysi wacan walaalihii qaaliga waa idin mahad celinaa kun iyo kow jeer saa ila socotaan iyo kommentiidina quruxda badan aad idinkugu mahad celinayaa please hadaa ka heshay like saar videogan asxaabtaada iyo ehelkaaga iyo qaraabadaada la sii share garay si ay uga faa'iideystaan